السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. caawa waxaan doonayaa inaan ka hadlo arrin loo baahan yahay in laga hadlo oo aan laga aamusin, arrin loo baahan yahay inaan afka iyo dhagaha laga laaban, arrin loo baahan yahay inaan indhaha laga laaban. arrintaa waxay tahay hooyada cidnaha ka dooran, hooyada cidnaha ka dooran, hooyada xaaskaaga hooyada ha ka dooran, carruurtaada hooyada ha ka dooran, waayo waa arrin khatarteeda leh. laga yaabaa inaad tahay qof soom badan, laga yaabaa inaad tahay qof salaad badan, laga yaabaa inaad tahay qof markaa sadaqo badan. wallaahi cibaadooyinka waaweyn ee qofka mu'minka sameeyo o dhan, haddii aad arrintaa ka digtoonaan weydo, cibaadadaadii waa lagugu soo celinayaa midaad dheefsan doonto ma noqon doonto. haddaba walaalka iska ilaali inaad xaaskaaga markaa ka doorato hooyada. haddaba qiso dhacda xilligii nabiga sala allahu calayhi wasalam ila dhegaysta. saxaabi la oran jiray calqama ayaa wuxuu lahaa hooyo markaa da-ah. saxaabigani wuxuu ahaa saxaabi salaad badan, sadaqo badan, soom badan buu ahaa, cibaadooyinkana aada buu ugu dadaali jiray. qof salaada ku dadaaluu ahaa, qof sadaqada ku dadaala ayuu ahaa, qof soonka ku dadaala ayuu ahaa. maalin maalmaha ka mida ayuu xanuunsaday. markuu xanuunsaday uu tabcaan noqday, xaaskiisuna ay aragtay inuu ninkani xaaladiisu khatar noqotay, ayaa waxay jeclaysatay in xogtaasi arrintaasi ay la wadaagta nabiga sala allahu calayhi wasalam. fariintii bay u dirtay nabiga sala allahu calayhi wasalam. waxay ku tiri, nabi allow, calqama maalmahan igu liita, aad buu u xanuunsanayaa, waxaan isku dayay inaan u qabto shahaadada, mana qabsanayo. ee nabi allow, arrintaa ogow, waxaan jeclaystay inaan arrintaa kula soo socodsiiyo. nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu soo diray bilaal iyo gruub kale. waxaa la yidhi, bal u taga ordaha walaalkiin shahaadada u laqama, shahaadada markaa u laqima oo shahaadada u qabta. nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu had iyo jeer jeclaa inay asxaabtiisa ay ku dhintaan qawlu laa ilaaha ila allah. markaasuu yihi, laqimuu bimowtaakum qawli laa ilaaha ila allah. mowtadiina iyo dadka sii dhimanaya u laqima oo u qabta laa ilaaha ila allah. markaasaa saxaabigii bilaal iyo gruubkii kale nabiga uu soo diray waxay bilaabeen inay markaa u qabtaan, ay dhahaan laa ilaaha ila allah dheh. way ugu celceliyeen, laakiin calqamow arrintii wuu awoodi waayey oo shahaadada afkiisii ma soo qabanayso. haddaba nabiga arrintii bilaal uu ku soo celiyey, wuxuu ku yidhi, nabi allow, calqama weli xaaladiisu way daran tahay, shahaadaduna ma qabsanayo, ee arrintaa la soco. nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi, hooyey aabba ma leeyahay? markaasaa waxaa la yidhi, maye, hooyo da ayuu leeyahay, hooyo da ah oo duq ah ayuu markaa leeyahay baa la yidhi. markaasaa nabiga wuxuu yidhi, haddaba ordaha raadiya oo u tago waxaa ku tirahdaan, haddii aad tahay mid usoo socon kara ama u iman kara nabiga sala allahu calayhi wasalam u imow, haddii kale gurigaaga joog oo isagaa ku iman doona nabiga sala allahu calayhi wasalam. markaasaa waxay tiri, nebiga miyaa? haa, naftaydaa mudan inay nebiga markaa u tagto, anigaa mudan inaan nebiga u tago u lugeeyo, iyadoo da aan socon karin, socodkana ku adag yahay, bay nebiga sala allahu calayhi wasalam bay u tagtay. nebiga sala allahu calayhi wasalam markuu arrintii ogaaday ay u timi, baa wuxuu ku yidhi, inankaagii calqama wuu xanuunsanayaa,
xaaladiisii maxaad ka og tahay? markaasaa waxay tiri waa u caraysanahay. maxaad ugu caraysan tahay buu nabiga ku yidhi sala allahu calayhi wasalam. hooyadii baa waxay tiri calqama wuxuu noqday mid xaaskiisa iyo carruurtiisa ka doorbida hooyadii, marka anigu i dambaysiiyey oo reerkiisu iga jeclaaday. nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku yidhi haddaba waayo xaalad adag buu ku jiraayay, iska cafi. markaasaa waxay tiri waa u caraysanahay, mana cafinaayo. nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku yidhi bilaal buu wuxuu ku yidhi haddaba waayo xaawo iikeen, xaabo iikeen buu ku yidhi nabiga xaabo ayuu nabiga dalbaday, bilaal ayuu ka dalbaday. bilaal xaabadii ayaa marka uu keenay, nabiga wuxuu ku yidhi haddaba waxaan rabaa, maxaad ku falaysaa bay ku tiri hooyadii, xaabadan maxaad ku falaysaa? nabigaa wuxuu ku yidhi inankaagaan ku gubayaa. waayo waxay ku tiri maxaad u gubaysaa inankayga? waad og tahay qalbigayga inuusan raali ka ahayn in inankayga la gubay, iska daaye in markaa wax yar la gaarsiiye xitaa. markaasaa waxay ku tiri ha gubin ee iidaa, uma dulqaadan karo. nabiga sala allahu alay slm wuxuu ku yidhi haddaba cadaabka ilaahay baa ka adag cadaabkani, kana baaqi ah. cadaabka ilaahay baa daran, isagaana baaqi noqon doona oo weligii uu ku jirayaa. masalaadkan adduunyada waa wax yare, inankaagaa cafiyo si uu markaa shahaadada u qabsado. markaasaa waxay ku tiri nebi allow, ilaahay baan ku dhaartay, idinkana markhaati baa ka tihiin, inankaygii waa cafiyey oo waana cafiyey oo cafis buu iga yahay. mar allala markay tiri cafis buu iga yahay buu nebiga bilaal iyo raggii kala diray. wuxuu ku yidhi haddaba ordaha u taga iminka oo eega inuu qabsanayo in kale. bilaal baa u tegay halqama, kadibna uu u qabto. wuxuu ku yidhi qul laa ilaaha ila allah, dheh laa ilaaha ila allah. markaasaa calqama markiiba wuxuu yidhi laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah, lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir. sidiina ayuu ku dhintay. halkaa maxaa kaaga cad? waalidka haddaba caradiisa waxay kaa celinaysaa inaad markaa khaatimo wanaagsan ku dhimato. haddaba waalidka ilaahay subxaanahu watacaala ayaa raali ka ah waalidka in la raaligeliyo. haddaad waalidkaaga raaligelisana ilaahay baa raali kaa noqonaya. haddaad waalidkaaga ka caraysiisana allah kaa caroonaya. haddaba waalidkaaga raaligeli, xaaskaaga ka hormari oo xaaskaaga iyo waalidkaaga aada u raaligeli, isagaa mudan in la raaligeliyo. haddaba waad arkaysaan adoo qof wanaagsan ah, cibaadooyinka ugu badan ee ilaahay uu nagu waajibiyey samaynaya, cibaadadoo dhanna samaynaya, soonkeeda iyo salaadeeda iyo sadaqadeedaba, ayaa waxaa laga yaabaa waalidkaaga caro yar uu kuu carooday in cibaadadaada dhan wax kama jiraan laga dhigo. haddaba walaal ka faa'iidayso, walaal naftaada ilaali oo waalidkaaga bubaari noqo, waalidkaaga u baari samee. hooyada iyo caruurtaada, hooyadabaa mudan in la hormariyo. xaaskaaga iyo hooyadaabaa mudan inaad hormariso. haddaba ka faa'iidayso walaal, hooyada ku dadaal, hooyada u baari samee, hooyada markaa baari samaynteeda ku dadaal, ku jihaad. ayadaad wanaag ku helaysaa, ayadaana jannadii adduunyada ku noqonaysa iyo midii aakhiraba. baaraka allahu fiikum. subscribe gareeya, sheer gareeya, walaaladin la wadaaga. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.